الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وأنت waxaan rabaa inaan qabto barnaamij ka duwan barnaamijkii la iga bartay suugaanta qaybaheedii kala duwanaa kala taa kan oo ku saabsan maantayto siyaasadda ama barnaamijkan lagu shaqeysto ee Soomaalidu dadka ku wareeriyaan maadaama dadka Soomaaliyeed maantayto waxa lagu dhaca ay tahay siyaasadda jaha wareersan saas awgeed waxa ugu soo dhacday inaan suubiyo suugaan gooni ah oo ka duwan kuwaygii horeeto oon u bixiyay duuflaal ama ereyga duuflaal waa marin habaabis wadaw marka aan rabo inaan siyaasaddan ka soo horjeesto uma kala qaadahayo inaan mucaarad ahay inaan muxaafid ahay inay tahay kulli horta waxay tahay siyaasaddu inay tahay baan dadka rabaa inaan dareensiiyo inta ay tirsi leeg tahay ayadoo dood ah ayadoo mucaarad ah intaba way ku jiraan marka hadda maansada duuflaal la magac baxday waa maanso ku saabsan qof madaxweyne ah ama ragga hadda madaxda noo hayo kaleeto madhabka ay aaminsan yihiin iyo sida ay rabaan inay dadka ula dhaqmaan bay matal ka tahay sida ay rabaan dadka inay ula dhaqmaan example ahaan waa aniga Cabdiweli ah oo dhistay dawlad baarlamaankeeda leh xubnaheeda leh oo haddana ku doodahaya wixii saxda ahaa oo anigu agteyda sax ka ahaa baan sax u malay baan rabaa inaan dadka ku dhaqo ayadoo dadka ay dhibayso baan rabaa inaan dadka ku dhaqo marka maansadaan rabaa inaan iska guda galo wuxuu yiri ninkan digdigtaad maqlaysaan dawladeyda weeye dubuubteyda qaadoo dadka waxaad u sheegtaan inaan ahay nin daacad ah damiirkaygu kama naxo hadal dabadda laga yiri duqa reerka baana waa iga digniin guud yaan damacu kula tegin diihaalku yuu gelin dahabkii xariirtan dusha layga soo helay rabbaa deeqda bixiyee dalladan harsanayana waa darajo ii taal dalladan harsanayana waa darajo ii taal dabci baan u leeyahay iska daa dadkayga jinku hadduu i doortaa waad ii durbaantumi waxa uu la dagaalamahayaa dadkii kaleeto wuxuu leeyahay xataa haddaad iga soo horjeesatiin waan idinla dagaalamahaya uu sii wato weye dad yahow may adeecdeen dowladaydu waa dahab dad waxaa inagu jira xaqa aan dibnaha siin dad waxaa inagu jira xaqa aan dibnaha siin dulmigana u xoog badan baarlamaanku doodiya dayn waaye hadallade dakhligan ay qaataan xageebay u doonanin hadday ila daaduunshaan waraaqahan la daabacay waa iyaga isdiriree dulmigaasu waa maxay dariskeenna lama helo ruux ku daba jira ma dantooda moogbaa dulmi kama baxaan miya may dood qabiil iyo keenaan war laga dido dadku ha isdagaalee haddana kala dareeraan hadiyooda xaajee may dadka isku diraan buu leeyahy si annagana loo soo aadin wuu sii dhaaranaha wuxuu leeyahay adduunyay darxumaley kuwa diiday hadalkow anna idinka doorbiday mooshinkiini diidaya dagaal baa inoo yaal si xun looma dirire in yar baan idiin digi sarbeebtayda daahfura doraad waad ogeydeen diiftii ku haysee maxaa keenay diidmada ama digasho rogashada dembi noo qarshoonaa dadka inaad u sheegtaan dul xariira moodaan maantana dareenkii miyaa daydayeysaan dib u raacu waa maxay dulmi laguma dhaartee dareen laawayaal yahow dugsi ma lahan geeridu hana degina aafaha yaan yay ku diirane wuu u dhaaranhayaa ayagiibu u dhaaranaya wuxuu leeyahay haddaad iga hor imaatiin waa idin laynhayaa wuu sii wato wuxuu shacabkayga dihanow dadka waxaan u sheegaa shacabkayga dihanow dadka waxaad u sheegtaan inaan ahay nin daacada dulmi anigu maan falo ruuxii idaba mara dubashaa u taalle hogayuusan dalaq dhihin shaqsigii dabaasho badda laba dogleeyo hadba dhinac dangiigsada birigu waa dariiq xiran shacabkii wuxuu leeyahay haddaad idaba martiin ood siyaasadda meel kale iga wareegsiin ood islaamaha igu soo dirtay anugu waa idin leynahay dagaal buu ku dhaaranhaya waa ragga hadda maanta noo taliyo kale doodaa waxay tahay saddex waan ku diriraa saddex waan ka diriraa saddex waan ku doodaa dibadahan ka sheegaa saddex waan ku diriraa shacabkan dantiis garan ruuxa lacagta dawbida doorka reerka laga rabo ninka aan aqoon diid saddex waan ka diriraa diiday waan ka diriraa
ruuxa nabadda daydaya caalimkii daliil iyo ii keena duuflaan saddex waan ku doodaa markaan dabadda gaaroon dal shisheeya magan galo duqa reerka waa ani dembi anigu maalihi deeq aan dib loo hubin iyo dhaqankeenna oo dihan ma dhaqan baa u dihan ninka maanta saas u dagaalamaya dhahaya dadkan xasuuqaya wuu sii wata wuxuu yidhi haddaan doojiyeen shubo haddaan daajiyeen dhaqa haddaan daris ka kala dumo yaa ila dagaalami horta keeba ila dagaalami kara haddaan dadka isku diro kii daqaaqamee baxadabarkiiyo hogaankii dacaygii ka dhiidhiya xabsigaan ku dalaqsiin nin idilay nin idagay ninka dabinka qoolow haddaad leeday deexdan aqal ninu dangiigshaan ku dabaaldegahayaa dulmi adigu maad falin aqligaa ku daba maray guri nin leeyaho halkaas daaro ka dhisan haddaad leedahay anaa iskaloo yeelanahaya dee aqli ma ahan anaa soo dhistuu taaganya meeshaan lacagteeda kula soo baxay haddii aad dalagan tahay dibjaleecadaadiiyo deen weyda hadallada dabka aad shidaysaa adunbaa ku dalaq dhihi dagaalada sokeeyaha kuma toobad seegee deeqa iyo xaliimiya dumarkayga aan qabo ayaa kula dagaalami waa islaamihiisii buu leeyahay baan kugu soo dirahaya ayagaa kula dagaalamahaya ragga dabadda joogana doorashooyin baa dhici waadinka ku doodee dalka maxaad u qabateen dayrtii horeetiya ilaa guganda ahayaa dakhligii aan soo rogay dakhliga aan keenaad u durbaantumaysaan waa idiin daciifnimo dagaalyahano adag iyo doodiinna maan maqal deeq aad bixisa da-ya dal shisheeye maa tegin baasaboor da-weyn iyo diblomaasi maati waa ragga la tartamaya doorashada kula socda maxaad haysataan buu le waa idinka ila dagaalamaysiini wuu u digahaya marka aakhirka uu kusoo gabagabeynaya u digahaya wuxuu leeyahy iga aamusa afka duub dibnaha xiro ha isku duminin daaraha dad baa igu dulnooloo dowladayda weheshada sanadyaan durduurana in yar iiga diga rogo haddii daa inagu simo marbaa dawli ridanoo darku kuu hagaagiye iga daa dinaahada rabbi dhowro deeqdiis biyo ninkaan waa ninkii madaxweynaha ahaa dad xataa waxaa ku jira muwaadiniina oo codkooda dhiibanahayo sida xaqa ah u hadlahay dowladda hadda maanta jirta haddii lagala tashan lahaa dadka shacabka ah waxa ay rabaan xaq bay u socon lahayd laakiin waxay ujeedaan sida meeshan ka muuqata inaan dowladdii wax la kala xadahaya ay tahay ninba meesha kusoo hormaro ninka maalintaas kursiga ku fadhiistaa jeega ka buuxsanahay shaksi muwaadina maansidan waxaa leeyahay iyadana quman waxaa umaleeya ereyo adooga lasii sharaxa ma laha quman waa qof muwaadina oo ka hadlahaya waxa xaqa ay tahay iyo sida nooca macaamilku u yahay wuxuu yidhi qashqashaada dunida nabsi qaawan baa yimid qoomamaynta ciilkana naf walbaaba qeybteed qiiro iyo xanuun bay qalbigeeda gelisaa waa su-aala qalayon waxqabad aan qalqiil gelin qaangaar ma noqon karo qalqiilku calashaan wuxuu haddaysan mar walba la isku qabsano la isku dagaal miyaysan qabsoomi karin ma jirta miya maamul inta mar noo soo baxa dadka wada anfaca waa su-aala qalayon waxqabad aan qalqiil gelin qaangaar ma noqon karo yaa noo qorsheeyo qaabkaa inoo furay qaninnimo allaaleh qoomka maanta joogaa qisadiisu waa maxay wiyi dadka maanta jooga dadka waa taariikh baa laga hayaa qof hebel waxaasuu ka tegay qof hebel waxaasoo baa lagu leeyahy wanaag baa dadka hore lagu tilmaamay lakin dadka maanta maxaa looga qisada ay leeyihin maanta sheekaan qaad kusoo maray bi bejkan waxaan suubiyey maalin maalmaha ka mid a waxaan imaan meeshaan maashka jaamka anoo meeshii marahaya waxaan maqaayadan fadhiisanana yar kaletaan ahayn waxaan arkay niman sheekaysanaya waxay ka hadlayaan maraykanka doorashadii maraykanka baa soo dhawaatay obama marka laba jeer uu ku guuleystay sharciguna ma qoray inuu mar saddexaad ku guuleysto toodiina waa farahay ka baxay soomaaliya kama hadlayan xataa wanaag is amri maayaan maxaa yeele aduu qof bini aadan ataa markii hore ilaahay ku abuuray buu wuxuu kaa fadilo wixii kale u abuuray walaqad karamnaa bani aadan baa ilaahay ku yiri ilaahay wuu kaa fadila dadkii haddana adiga wax kale siiyo uu kuu siraaco wuxuu yiri kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wa ummatun maxamed waad si kasii fadilantahay intaas haddana waa kasii dhex ulan tahay oo waxaa lagu sii raaciyay wata'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar laakiin munkar iskama reebna maanta markaad fiirisid waa isku jaha wareersanna marka bejkan wuxuu sheekaan qaad ku soo maray ninay gaajo awgeed qabsinada adkaadeen qoysan karin qalaylkii markuu qaadka daaqo qiso iyo war sheega hadal loo qosolaayo qaraexya cayaar mudan qotonshaa albaabada daara qiimo badan oo qandaraas saxiixda ninbaa maalin meel ugu nimid annagoo farfadhina uu qayilaya marka annaguna korkiisaan joogna waa soo jeeda war hebel baa iri markuu soo jeestay biyo maxaad ii soo jeesanay meeshaad iga soo celisay mataqaanaan anoo afrika dhan ka tegay baad igu soo celisay biyo waa ila fadhiyaaday marka ana afrika dhan ka tegay igu soo celisay qotonshaa albaabada daara qiimo badan oo qandaraas saxiixda
markii qaad dhamaadee biilku qaylo keeno qabar uu kusoo dumo ayuu caraqa shoocaa qalalaasahaan dhacay qadafkii khiyaanada waxaan qaadnay cudur baas biyo sheekaan qoloba noo dirin baan qaadaa dhigaynaa haddii qaarba qaar kale qalad uu ku sheegaa xidigtii qabyada ahayd ninba qowlad suubsada qowladu waa xero waa carabig ereyga waa xero yar waarat Jubbaland Puntland baa naloo kala gogoynaya xidigtii qabyada ahayd ninba qowlad suubsada keenay qaloocani qiimihiisu muxuu noqon inta hadalku qiimiye leeyahay qiyaas wacan amuu qaabsan yahay oo dadku wada qirahayaan qowlkii ilaahay waa wax lagu qancayo nafta qaayo gelin karabiyo inta uu qalqiil yahay muruq qaraar badan inta uu qalqiil yahay muruq qaraar badan iyo waxaan qarin jiraa tagay waa inaan ka qanacnaa ha yeeshee qorshaha badan ha yeeshee qorshaha qaran xisbiyadan qaraarkii wada qoloqolaintana Soomaaliya qallibayaan kuwa dhiigga qubaya miyaan xarigu qabanayn waa kana maalin walba qof baa la dilayaa maalin kasta waxba qof baa dhibana qarax maanta taas u dambeysay dad baa ku dhintay Soomaaliya lagamana hadlahayo laakiin wiilkii dhaha war sidaan bay taa xabsiga la gelinaya abwaankii fanaankii wariyihii daacad u waramo waa la qabanaya daacadda laga soo horjeedaa wuxuu yiri saaka waxaan saaka qubanahay meel aan geedku qariye lahayn hoy qadiimiya qiiq iyo abaar iyo qaxootaan dhex joogna qarowgii barbaa tigay quudkii barbaa qaday qarankii barbaa dhumay Soomaaliya maqiil baa inaan qaranka duminaa inaan diinta qarina xaq qalad ku sheegnaa dhaqankii qurxoona aan ka qaawanaana qabiil beena sheegnaa qaniyow ilaahow uu si u ducaynaya qofku qof islaam markuu yahay marba ilaahay ku aqbalaya waqtiga noqotaba qaniyow ilaahow qulubteena nooqo ficil kala qabweynada waxaan aayad noo qoran amaan xadiiska lagu qoran qanaciya wanaag ma leh ku qushuucnay eebo qarac ceebaheena hanuunkaaga nagu qabo yiri maasadan waa ayadan intaas ku soo gabagabaysanaya sidan shay waa iska shakhsi wadani ah oo ka hadlayay taan ku xijinayo waxa la yiraahdaa anaa dagan wuxuu yiri darku wuxuu hagaagaa ceesha dawli gaara marka aan dagaal dhicin doobkiyo duqayduna wada doojistaan oo xooluhu dilaabaan darku waxa la meesha xooluhu ay ka cabaan oo ceelka afkiisa baa dar la dhahaa marka darku wuxuu hagaagaa ceesha dawli gaara marka aan dagaal dhicin doobkiyo duqayduna wada doojistaan oo xooluhu dilaabaan dhirtu waxay dihnaataa markaan diiro daaqina dariskeedu uu jarin dhuxul laga didaameen dadku wuxuu ahaadaa haddii waari dabagalo diinta looga dhiga abab daa waxaan ka soo rogi doodayda ee maqal xaqa way u dirirtaa shacabkan dugaagiya danyartay u tahay hoy dhalinyarada diiftiya dibindaabyo iyo ciil daalaa dhacayay dugsi iyo u tahay marag deydadkan la kala xiray darbiyadan la meeriya waxaan furi dariiqyada waa gobol goboleedyadu ka hadlaya buu leeyahay isku furi dhaqankeeni dubay baan darbiyada ka raadshaa dumarkii xishoodkii dadnimadu ku dheehnayd markaad hadal ka doontood guurdoon haddaad tahay danta nolosha sheegtaa garta soo dulmari jiray maanta way dullaysteen dabeeshkaas ujeed kale ma aan lahayn anuu dad waani baan dhahay Soomaalidu waxyaalaha ku faanta waxa ka mid ah geela iyo gabdhaha way ku faantaa gabar markii la guursanayo 100 halaad iyo qori baa laga dhiibaya marka tan beejkan ujeed goolana leeyahay dad inaan caayay ma ahay yaa loo fahmin dad caayahay asagu wax waani islaahaya dhaqankeeni dumay baan darbiyada ka raadshaa dhaqankeeni dumay baan darbiyada ka raadshaa dumarkii xishoodkii dadnimadu ku dheehnayd markaad hadal ka doonto guurdoon haddaad tahay danta nolosha sheegtaa garta soo dulmari jiray maanta way dullaysteen kuwa timaha daysto inta kalar ku daadsheen dimuqraatig baan nahay dibadaha la meero dayac iyo darxumada ay ku dabaaldegaano farxad bay dangiigaan diibkii udgoonkii dhaqan dumar lahaan jiray mugdi baa ku daahmaya madanba madawba sida tani madiinba jirkoodadan dibnaha xiran dood aan badnayn iyo waraan dariska gaarayn waa dadkan ka dhalana yaa iga dambeeyo aan kala dardaarmaabay dumarka noocaas waa dadkan ka dhalana yaan kala dardaarmaa dalka kani madeexba uu soo meeshii ujeedku uu kala haabo soo gaar marka dalka kani madeexba duur joog miyaana doorashadii dhacaysaba maxaa doqonka loo siin sida doon ka jiilaan dayrtii imaataba maxaa geesi loo dili dagaalyahanadeenii raggii gaala dabar jaray dadaalkoodii muu luman sida weel daloolo biyihii ku daataba ay uga dareeraan amaalkii ma duubteen goormaa dowlad noo dhalan biyo ninkan goormaa dowlad saxa
noo dhalanaysaa. marka waxaan u malaynaa hadda maansooyinka gacanteeda ku jira saddex kuwaasaa bejka qaabilsanaa, laakiin maansadan waa layga codsaday kuma aysan jirin. maansadan waa xoogaa xagga isqabqabsiga iyo dadkayaga macaamilkiisa meel walbay joogaan sida aysan ula macaamilin siyaasadda nidaamka dawliga ah, hadday dabad joogaan iyo hadday gudaha joogaanba ay meesha dowladu ka jirta ay iskugu dhiban yihiin. ki dhulkeeni iyo midkan kaletaba bay ka hadlaysaa. marka waa maanso codsiya, laakiin bejka aan sugaanta maanta xulka ah aanan ugu soo talagelin. wuxuu dhexdhexaad baa leeyahay maansadan. ma dhidhiyin dharaarahan maansooyin maan dhugan gabayano iskaba dhaaf, bal aan dhiisha aaburan ka dhufteen dhexdeed galo murtidan ka dhowrsada aan dhibir u kaashado. dhexdhexaad u noolo waa waxaana dhumiye waraabahan dhallaankae jaqa dhiigga xoolaha ayaan dhinac ku haynaa. mana ogin dhibtiisiya dhaawiciyo garaafada soton dhogormadoodii dhuuqeen dhallaankii soton la isku soo dhacay een cidiba dhiidhiin. isdhagreerinteenii sharci dhowr la-aantii ayaa dhimirka naga galay ogow haad ku soo dhigay. dhan kastoon ku noolnahay kii aan u dhalaniyo kuwa aan u dhoofnaba dhibaataana haysee soo tala naguma dhicin biyo. afartaas dhankaygiia waa dhaawacaan qabo, afar kalena waa dhugan dhibta nolosha taaliya taariikh baan ka dhigaya. dhibaatooyinkii dhacay dhulkii aan u dhalnaan uga soo dhaqaaqnay maantana ma dhimasha, sida ruux dhukaan qaba amaan dhuunigii heli u dhardhigata dunida dhaqankii ma xoodheen. dhalanteedka beenta ubadkii ku dhumisay xaggee dhaanka lagu furi biyo, xaggee dhaanka lagu furi. dhalmadaad ku keentiya waad ogeyd dhibkeedee dhiibaashu waa maxay. yaa dhurwaa maciin biday dhaqo xoolihiis yiri. qof inta dhurwaa maciin biday yiri xoolahayga hoo ii dhaq ii haya xoolaha ila jig ma jira. waxba yaanan dhaadhicin dhug u yeela maansada bal dhexdeeda sii baar u dhammaystir dhaayaha hadalyuu ku dhaafine. xilkii maanan dhuminina dadkii aan u dhaartaa dhinacyada dab laga dhigay. ninaan bala dhaweysanon gurigiisa soo dhigan ilaan dhaawac culus iyo uma keenta dhiimaan. ilaan dhaawac culus iyo uma keenta dhimirli. dhalanteedka beenta ninaan bala dhaweysanon gurigiisa soo dhigan ilaan dhaawac culus iyo uma keenta dhimirli. aan dhameeya hadalkee hablo yahow isdhaarsada dhoobada ka sare kaca ku dhowrsada sharciga oo xaqa dhaayaha u fura. intaas buu maansooyinkii, inkastoon maansadaan aysan ka mid ahayn topiga maanta aan ka hadlayay, laakiin layga codsado codsi ahaan aan ugu soo daray. insha allah marka barnaamijka uu sii socon doonaa, aniga asxaab kaleeto fara badan waa ka qayb qaadan doona, waan sii wadi doonaa barnaamijkan. barnaamij intaan ku eg maahan waxaan uga soo soocay suugaantaydii kaleeto wuxuu ahaa inaan ku taagadgarayso maanta waxa ka jira waddankeennii iyo siyaasaddu say tahay.